Guddoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo warfidiyeenka kula hadlayay xarunta maamulka ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in ay soo afjareen xiisad dhanka deegaanka ah oo u dhaxaysay laba beelood oo wada dega deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer. Waa kan guddoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya sida maaragtay arrinta loo bumbuuriyay ama loo weyneeyay ama meel walba loogu riday arrintu ma ahayn arrinta Cali Saahid ka taagnayd waxay ahayn dadka deegaankaas oo runtii jeclaa in ay ka wada hadlaan wax danta deegaanka ah oo ku saabsan in sidii aan maaragtay deegaanka waxyaabahan imika wad isku ogtihiin waxa ku badan arlada dhul daaqsimeedkii oo la rabo in tuulooyin laga sameeyo in balliyo cusub laga sameeyo in beero laga sameeyo waxyaabo noocaas ah marka runtii hadalkii un baa isu yara qaban waayay dabadna arrintaas runtii waxay keentay in dad badan oo waxa iska jira imika waqtigan inay ku jiro dad badan oo ah sixir wuxuu sheeg sixir waa ka daran yahay inay arrintii si kale u rogaan oo yiraahdaan beeraha halkaas isku hor fadhiyo oo dagaal baa socdo oo caynkaas oo la bumbuuniyo waxa laaliyo wax arrinta ka jiray ma jirin sida daraadeed shalay waan tagnay halka guddida nabadgelyada gobolkan ku tagnay go'aamo dhaxalgala oo khuseeyo deegaanka halka waan uga akhrinay in maaragtay deegaanka ay siyaasadda xukuumadda tahay inaan la sameeynin deegaan cusub oo xukuumadda Soomaaliland siyaasadeedu waxa weeyaan in dhul daaqsimeedka la ilaaliyo wax deegaama oo cusubna aan lagu soo korin haba yaraatee anagoo taa ka duulayna waxaan u sheegnay dadkii halkaas deegaanka wada deganaa inaan deegaankan lagu ogolayn wax deegaamayna oo cusub haday tahay tuulo haday tahay balliyo cusub haday tahay beero cusub haday tahay cishimooyin intaba aan lagu ogolayn arrimaha heydmanku hadii jeer dadku ku yara murmulaan iyadana wax weeyaan waxaan leeyahay heydmanku waa nin ka tirsan shaqaalaha gobolka ayuu dawladdu ka tirsan yahay heydmanku sida daraadeed ma jiri doonto qof heydman oo dad shicib ay iska bedelaan intay yiraahdaan waanu bedelay ay bedelaan heydmanka iyadoo la raacayo runtii directionska tuulooyinka iyo qaababka u yaala iyadoo la raacayo oo xafiiska heydmanka waxa aqbali kara oo accept gareyn kara heydmanka cusub dawladda qodobada aan u soo jeedinay runtii oo 5 qodob ahaa si wanaagsan bay dadkaas u qaateen marka arrinta Cali Saahid sidaasay ku dhamaatay waxa la wax dhibaato ka jiraan ama jiraan hore uga jireen ma jirin dadkaas uu soo tilfaahimkii ka yara khaldamay oo de waxa weeyaan wad ogtiin dalkeeno dadka in badan baa iska jecel in fidno ay abuuranto intii jecel in fidno abuuranta ay si kale u dhigeen waa fahmi kay sixirsi bulsha TV burco